السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا اليوتيوب بلدي وذا السلام يا دول دافه هذا ملك استاذ كتشوكتان مر لبعضي مر استحاد واحد ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا كسودو هذا حمد الناتشرالز ومركز تاني كوكا لفائدة يسنو وحيالها مفيد كينوه وحنو فائدين هديتها هاي توبيك iyo هديتها هاي ما أركتي وح horumar lagu gaaro iyo sida horumar u sameyn lahayd iyo hadda waxa aad ma aragtay baran lahayd ba marka wanaagsan oo wacan baan idin leeyahay soo dhawaada ku soo dhawaada channelkayga maanta maxaan idin hayaa weeyaan maxaynu ka hadlaynaa muddo badan ayaan rabay inaan idin la share gareeyo wax khayraadka dhulkeena kamid ah marka balse maanta inuu suurta gashay anoo horeyna saliidaheeda idin la share gareyn jiray channelkan haday ahaato iyo channelkayga hore haday ahaataba marka maanta maxaynu haynaa weeyaan maanta waxaynu haynaa waxa la dhaho luubaanta qolofteeda ama luqadda ingiriiskana lagu yiraahdo wood chip yaa marka luubaanta qolofteeda ayaynu inaguna dhahaynaa faa'iidadeedo gaaban baynu kor maraynaa iyo sida aynu uga heli maaragtay iyo de wax dhulkeena ka soo baxay weeyaan saynu uga faa'iideysan karnaa awalan horta aan anigu isku yara qiiqiyo ya halka waa dabqaadkeeni waa ujeedaan dhuxul baan ku shubay oo dabqaadkeeni la yara xawaasheeyay marka ma sha Allah hadalkiyo koobani waxa weeyaan horta tani waa luubaanteeni dhulkii hooyo ka soo baxday ana gacantayda kaga soo gaday dhulkii hooyo markaan tagay ma sha Allah wataasi waa cusayb waa u jeedaan waana qoloftii kaliya oo xanjadii laga saaray markay tahay xanjada markay tahayna waa tana markay tahay xanjadii kaliya wataasa ma sha Allah xanjada iyada waa la kala miiraa darajooniyo waxay kala leedahay qadaraadna balesado inagu hadaynu Soomaaliyeed bariyahan dambe ma ogiye uma ayna noqon jirin horay muhiimadeeda uun inaynu mar uun shidsidano uun ma ogiye maaragtay horay maaragtay aad muhiimadka ay leedahay ma ayna ogaan jirin kanna waxa weeyaan buugga ka hadla markastaan idin la wadaago ama akhbaaraadka ay ka soo diyaariyo buugayga iskuulka qalin jirtay kamid ah macluumaadaydu ii soo dirtay marka waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa saliidaheeda iyo sida saamuunta looga sameeyo ma aragtay luubaanta wax alaabo badan buu ka hadlayaa laakiin luubaantuna way ku jirtaa marka let's go ahead hore u socono horta tani waa luubaanta qolofteedii maxay leedahay luubaanta qolofteeda awalan waxay u leedahay waxay faa'iido u leedahay waxyaalaha hawada ka dhasha sida guriga oo kale saynu inagu guriga hooyooyinkeen ama inagu ugu soo qiiqin jirnay wadankii berigii hore aynu yareerayn sababta anu saas u baarki jiray guriga lagu qiiqiyo ama umulaha mar oo loo shido iyo guriga maaragtay maalmaha sida maalinta jimcada oo kale loo shido oo waliba dadku ay necab yihiin oo la dhaho maaragtay dad khaas ah shitiyo waxaas balse waxaas ma shitaan waxa weeyaan waa mudaawaad intaasoo sano ayaa la isku soo daaweynayay sida Egyptianka adduunyadana 3 meelood buu ka baxaa sida ugu badan oo la xuso waxa weeyaan Botswana waxa weeyaan Soomaaliya waxa weeyaan Oman marka badana markasta waa idin sheegaa pointiguna meesha ku aadan yahay weeyaan kan Soomaaliya ka baxaa ugu fara badan laakiin inagu ma aynu ogin dad intii layna ka qaato oo laga yaabay dadka dhirtaan iska leh oo Soomaalida laga yaabo aysan khibrad u lahayn khibradna uma laha ma sha Allah wayna dadaalayaan oo dhirtooda way wali haystaan Ilaahay ha barakeeyo waa laga gataa lacag yar baa laga gataa billions baa dadweynuhuna kala siistaa ya atrada ugu badan oo France waa meesha atrada caanka ku ah profonada luubaanteena laga sameeyaa balse inagu ma aynan ogin adduunkan loo kala gadaayo loo kala goojiyaa marka ma sha Allah pointigayga maanta dhanka ka faa'iideysiga weeyaan calaashan saynu uga faa'iideysan karnaa ya intaanan u guda gelin maaragtay waxa ay caafimaad ahaan tadho
marka innaga maxay noo diiday warshado waaweyn inaynu ka samaysano kaba soo qaad dhalinyarada hadda wadankii wax ku akhrisatay ee wadankii wax ku baratay ee Soomaalida ay aad u fara badan wadankii gees inaad geedahan maaragtay aynu gurano aynu dhaqaaleysano aynu geed ahaan loo dhaqaaleeyo geed ahaan loo waraabiyo geed ahaan loo naashnaasho la koriyo iyo langeedka gunta laga soo koriyaa ka bacdi baa baarkiisa la manaafacaadsadaa adduunyada adigu magacaaga iyo inaayahaaga intaad ku qoratid iyo warshadaada ka dhigatid adduunyadana ay kaa gadato adduunyaduna kuu soo baahato adduunyaduna noqoto mid adiga waxaaga u baahan ee waxaaga aan xadaynin adduunka markii lagu kala iibinayo luubaantana ay noqoto geed la xusayo meesha uu ka yimi wuxuu ahaa in la yiraahdo ma aragtay waa original ma aragtay Soomaaliya ka yimi hadda marka anaga nala barayay essential oils ka marka nala barayo essential oil ka meel kasta mid meesha ay ka timaado waa lagu sheegay waxa lagu dhahayaa waxay ka timi France hadda essential oil ka la yiraahdo lavender oo kale wadamo badan bay ka timaadaa waxay ka timaadaa Japan waxay ka timaadaa Faransiiska qaarba magac yar bay leedahay oo u gaara marka qaar waxay ka timaadaa wadan Latin America ku yaala marka waxa lagu leeyahay tani waa wadan hebel TC ama guud ahaan baa lagu oranayaa wadamadaas ka kala yimaadaan marka inagana the point is inaan ogaano wadankeena inaan adduunyada wax dheernahay laana tana inoo baxdo oo waliba ilaahay maaragtay aynan ahayn geel la beeray maaha geedaynu xoog gelinay maaha waa Allah subhanahu wa ta'ala geedu hadiyad inoo siiyay marka especially waxaan leeyahay waxay ka baxdaa bari laana anu hadda tan waxaan ka soo gatay Garowe ma sha Allah reer Garowe aad baan waxaan ugu amaanayaa waa dad dhaqankii bay kaydiyaan dhaqankii bay hayaan meel kasta diil iyo wixii dhulka ka soo baxay iyo haamihii iyo dhaqan Soomaaligu aad buu maaragtay uga muuqdaa markii aan u komeergareeyay meelo kale oo wadanka ka mid ah aan soo maray marka ma sha Allah waxaan leeyahay reer Garowe idinkuna halkaas aad ka sii wada dhaqanka aad kaydinasaan intaasina waa xusitaan meeshaan ka soo gaday baashan ku sii darayo ma sha Allah marka waad u jeedaan waa iyadii cusub dhalinyarada waxaan ku boorinayaa markasta waxaan jecelahay dhalinyarada Soomaaliyeed inaan booriyo especially kuwa wadankii joogo inaan maaragtay ku booriyo ku bushkareeyo in wadankeena khayr yaalo in wadankeena wax laga manaafacaadsan kara yaalo in wadankeena ay taalo tan oo industry-ga maanta adduunyada multi-millionaire laga noqdo ya لأن مليون وحبا لغو استعماله لأن عافمات كبي صوغشي عافمات بدن با laga helay sida depression ka anxiety-ga maxay hayto oo isla hadalka iyo buuqa isla sheekaysashada maxay hayto walwalka waxa soo dhan marka la shito inuu qofka ka biinayso intayga ahaan iyo marka la cab ahaan inay cudurro badan iyadana saas oo kale dadka qaar waxay ogaan cholesterol-ka inay lower ka dhigayso inay ma aragtay immune system-kooda wax badan ka bedelayso inay ma aragtay waxyaalaha ku dhaca respiratory-ga laabta ama neefa ahaato ama naqas kale qofka qabta ahaato ama respiratory ma aragtay xiran ha ahaato adigu respiratory waxa la isku dhaho dhan waa laabta amraadka oo laabta ku dhaca cuduradaas marka inay daawo u tahay iyadana ayaa la ogaaday marka why not intii aynu hagaagsano oo ma aragtay la nashqadeeyo oo magacaaga aad ku samaysatid in aynu ogaano inagu inaan waxaysano inuu dhaxalkeenii yahay iyo intii soo ilaalisay iyo intii soo gurtay iyo intii ma aragtay wili haysa oo daba joogto ma aragtay aan ka daalin laana waxaan ogahay wax badan oo wadankii kamid ah in laga daalay xataa in beer farashadii laga daalay kulay intaan anigu soo arkay beerihii oo la fasho ama la dhaqdo miyal beer qodashadii marka inaan laga daalin aad baan ugu amaanayaa dadkii soo guray dadka steel gacanta ku haya ma sha Allah inaguna hadaynu nahay dadka jiilkan ma aragtay middle age-ka oo dhexe oo ama dhalinyarada kuwa soo kacaya in ma aragtay ma sha Allah liana soddon jir iyo wixii ka weyn lama dhihi karo dhalinyaro laakiin waa dad middle age waa dad ma aragtay laakiin still adduunyadii u macaantay intii geeri ka baxsata oo headna ka gaari kara marka waxa khayraadka dhulkeena hayna la macaanaado hayna la wanaagsanaado aynu nashqadaysana xataa kan dabqaadkeeni weeyaan adduunyada dad ka nashqadaysid oo bandhig faneedyo lagu qabto oo waa wax adiga kugu gaara ya carabtu kan ay leedahay
carabtu bahalada saas u hagaajisaa saasay ma aragtay waxay uga dhigtaa wax meel kasta lagu gadanayo. Amazon hadda caan buu ka yahay, gaalada maxay u gadataa, you can imagine ya. ma aragtay inagana sidoo kale waa in layna ka helaa ma aragtay warshado saasa. dadka qaar oo Soomaaliya markaan joogay waxaan dhihi jiray maanta saana la sameeyo alla waxaad haysatiin, qaar baa adiga waxay kugu oranayaan adigu maad samaysid. war anigu adna waan kuu sheegayaa, aniguna dee waan sameyn, laakiin qof kastaba meel bay u taagan tahay. waxaa jirta Soomaali ma aragtay maasha Allah wax kastaba just like that bay ku sameyn karaan, ama dhaqaalahooda ha ahaato ama xirfadooda ha ahaato. number 1 caqabadaha ugu waaweyn ee dadka ka hor istaaga waxay yihiin dhaqaalaha iyo fikradda. number 1 waa fikrad, haddaad heshid dhaqaalihiina kuugu tarsamaan ma aragtay awoodda dhaqaale, you don't need anything else. wax kale aad u baahan tahay ma fikradii iyo dhaqaalaheeda isla haysid ya. marka ha noqoto walibaanteena inamada yaryar ee hadda ma aragtay dhaqaalayahanka ee dhaqaalaha barta, aad baana businesska wadankeena looga bartaa. markaad weydiisid inamada iyo gabdhaha maxaad baranaysaa, mid kasta wuxuu ku oranayaa waxaan baranayaa accountant business ma aragtay. marka maasha Allah ha noqoto luumaanteena ama iyadoo saan qolofta ha ahaato ama iyadoo xanjada ha ahaatee, mid ma aragtay adduun weynaha inaga magaceena intay ku sharciyeysanto adduun weynaha laga gato, China tagta, hadda Cumaan oo kale way iyaday kala migraysaa inay teedii intay ku yaraato oo teena qaadato ayay waxay kala migraysaa iyadu leedahay, mana laha waa teeni. marka waxaa la yiri ninkii ma aragtay nin maxaa la yiri nin seexdo yaan lagu seexan ma yahay wixii seesti Soomaalida cafan hadaan khaldayna. marka yaan laga seexanin, markastaba ku fakera, ha ku fakerin tahriib, ha ku fakerin inaad soo tagto, ha ku fakerin in lacag ay Yurub taalo. Michael wallahi lacag Yurub ma taalo, wadankaaga tay ku xiran tahay, wadankaaga ku qiimo leedahay, wadankaaga shaqeeyay hadda ka soo shaqeysid karaamaad ku leedahay. laakiin Yurub heer kasta aad ka gaartay adoo dhakhtar aadan xataa waxaadan ku lahayn ma aragtay wadankaaga karaamada aad ku yeelan aad ku leedahay. marka intaasina waa inamada iyo hablaha wadankii jooga baraarujin iyo fariin aan u dirayo. ka faa'iideysta dhulkeena, ka faa'iideysana dhulkeena khayrka iyo natural resources oo dhan isugu soo haray. wakaas tan hadda waa tusaale kale. tusaalahan waxaa weeyaan tani waa saabuuntaas hadda Afrika markaan joogay, Soomaaliya iskaba dhaafba, laakiin Afrikada kale maraan tagay aad baan uga raadiyay, meelo badan baan ka raadiyay waan ka waayay. xaqay saabuuntan ka timaadaa weeyaan Afrika ka timaadaa West Africa. inagu East African baan nahay, Kenyaanka, Ethiopiaanka, Soomaalida saasay tahay ma naqaano, mana ina ku badna hadda ina soo galgalaysaa. marka aad baan waxaan raadiyay laana waxba san sameyn jiray, marka aad baan u raadiyay ugu baahday markasta ma aragtay waan waayay. hadda Mareykan baan ka helay ya. Mareykan sababtoo waxay og yihiin faa'iidada ay leedahay. West Africa laga soo qaadaa iyadii shay badarkaba, inaga oo Afrika intay inoo jirtaa waxaan leeyahay West Africa intay inoo jirtaa waa neighborkeena, waa dariskeena, wadankeena lagama helo, maba oginba faa'iidadeeda ya. African black soap baa la dhahaa. marka maxay ka sameeyaan dambas dir la dubay oo la dambaseeyay baa laga sameeyaa ya. inaguna meeqa geed baynu leeyahay, waxaan garanayaa geed gasan-gasta la yiraahdo oo Soomaalidu wadanka Soomaalida ka baxaa, kulaan magaca gasan-gas ma aqaanay. waxaan garanayaa ooyayday dharka ku dhaqdo oo wuxuu sameeyaa xumba aan saamuun kastaaba sameyn karin ya. marka dhulkeena iyo Africa natural resources yaala iyo wax kasta barwaaqada taala aynu ka faa'iideysano leeyno ka hormarin. liana hadda ana ya iga faa'iiday nin cadaana iga faa'iidaya ya, oo wixii wadankayga Afrika soo gatay anigana ka sii gadanaya oo sii faa'iideynaya. laakiin maxaa iga fiicnaan lahayd anigoo ka gata wiil Soomaaliya ya, anoo ka gata warshad Afrikaan leeyahay ya. sababta I know Afrikana marka laga soo qaadayo tan lacag yar oo aan waxba ahayn baa lagu soo qaadanaya, sentiya ka yar. marka saas iyo faa'iideyso wanaagsan inuu ana ii soo faa'iideey, aniga markasta faa'iidada iyo horumarka iyo dhiirigelinta diyaar baan idin lahay. bartaad ka dheehanaysaan waa Xamda Naturals ma aragtay, anigana waa dadaalka, idinkana waa ducada. kusoo dhawaada channelkayga, subscribe sameeya, markastaba gacmo furan iyo markastaba ila soo wadaaga waxyaalaha aad u baahan tihiin ma aragtay inuu iska dhiirigelino. idinkana dhiirigelintiinu waa dhiirigelintayda, taydana waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. subscribe, share, la wadaag walaalaha, la wadaag ma aragtay baraha bulshada ku kala faa'iideysato.
وكاسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.